tan sheekh Isxaaq waxay kor u dhaaftay 2,000 muddadii dambe uu joogay meesha 2,000 oo nin ayuu diinta ayaa markii hore u qabsadayna waxay ilaa 500 400 ya marka dambe 22 sano ayuu sii joogay 6 sano iyo 4 dambe oo ka dambeysay 20 sano ya marka waxay kor u dhaafaysaa 22 waxay kor u dhaafaysaa 2,000 oo ardaya ayuu wax ku bari jiray Harar oo sheekh weyn oo dacaan diinta ya ila Ethiopia ila Suudaan ila magaranaysa ya looga soo cilmi doonan jiray muddo dheer ya ayuha dabeetana charchar markay muddo joogeen 7daasina oo ku yiri halkaas aan tagaynaa 5taasina Suudaan baan u baxayna 10 baa ku soo haray 10kii baa ilaa meelay soo lugayeen 14 geedi ay soo socdeen waa marka eegtid distance-ka xagga xeebta looga socdo waa just the same intaas weeye ya 14 geeda la socon karaya ya dabeetana markuu deemeer yimid ayuu shirida ishaaru haystaa halka u shaadaasi ka fuq weydo halka deg dabeetana markuu dadkii reer miyiga u yimid ayna war halkaasi libaaxay leedahay iskaga soo guura goor maqribay soo galeeno dabeetana iskaga guura bay yiraahdeen baashi uu shirfuujiyo oo fichi kari waay Allah waa halkan buu yiraahday halkan soo socday baa waa halkan ya saasu markaa oranay oo tagaya aduu 10 nin 6 nin ayaa oranay Allah aanu ku dadkan kama guursan karo caruurtayda bedelmaysa noocan bay naga noqonaysaa saasay noqon ya saasay markaa halka ku tagaya waa 3 boo markan uu imanayo maybe 5 laakiinse qoraalada ka waramaya 30 jir baad moodaa qoranaya markuu dhowr iyo 9 ka yahay dhowr nin baa wax ka qoraya moogtay war wallahi inaanu 30 jir ninkan iyo ilaahay buu xil qariyo يعني مرعى ماله صد قف إنا يروح صد جلد متى حيث مركي يا ماني أي سو حكي المقرنسة مركي يوم سو حكي عرورتي ساكواوي لبدي شيء إنا ده وكل الله دوريات الشركة أيها لمودي إني كواوي يا السجيرو إنا يربح مركا واحد جرتا يا أنا مدو الشيخ إسحاق نفتي سينو شيخيو هدات عبادة بتستان ذكر إلهي بتستان وضرهمها بتستان والعبادة عاد بتستان عمركينا ديرانا وينو حق القرآن الذي سابق وركس يا لكن سينك هذا ورثنا إنك الدنيا ورث يا ما قرأت مركوس الشيء يا رياض عرق أنا ما بلي هذا تلاعي مكان إنترنت بقول لافتي مين أكتيد أو تكاركس إنترنت بقول لافتي أدب وماش إنه بدن ده بقول خنافته رجعوا يا ورمان تين تاينو هاتو أنا دين شو شيء هذا بسلام يا وين ودي أنا أقول وين سنة واحد ده تعرف قاين مجال وكله نبغى كي مجال هيك بكسرين حقنا قلنا الدارو سجينا واحد هذا وحكي بكسرين بقى كي درت ما قعان هذا بقى هدي ساشي وقاي حكي كيمين meeshan dirta laga xisaabiyo la yiraahdo dirbaati xaqiiqada ilaa waa sano sheekh halkaas kaas waa qodobka labaad waxa la yiraahdaa suudaanimada waxa ugu horeeyay suudaanka dhuux baraar sheeka jirta la yiraahdo tawjacna wuxuu ahaa suudaanka isaaq ugu horeeyay dabeetna wuxuu yiri maalin walba dhuux baraar dikeena waa sheekada عامد إن شرتي إن كله ما هو بس صندلا داسنا سريع عيد يو ماشي كودن بيسي هذا سؤال وعويا توني كلمة دوي هو شرتو إلياس يا كودن بي والله قاعد عطي يراو كي ومسلمين عروتيسي سجل التاي عروتيسي ده إسلام بيه يا لقطومي ده بترى والله قاعد ده بتنا هالكين بي مادي يا تفيرتني كاسو نكسو جدو أحمد ليلى أنا وكل جوسدي وهالكم برحب وشيت إنه وشيء جاي وهالكا
abushayd lagu sheegaya waxaan axmed loogu bixiyana waa axmed nagaashi ya inankii ugu weynaa kowle halka magaca dirka haddii aan kuu sheego waxa jira harar waxa la yidhaah harar waxa aasaasay abaadir waxa weeyaan aabbihii dirka weeyaan abaadir wixii harar soo maroo dhanna waa dir ida loo haysta had iyo jeer ya wixii xagga harar ka yimaada waa dir ya halkaasaa dirku magaca dirku ka imanaya ya maaha abtisiin nin kastoo dir soo xaggan harar soo maray dir baa la yidhaha sida ma garata halkaa waa intaa ya mada way jirtay oo saldanad maahena waxay ahayd khaliifat sheekh isxaaq wax la yidhaha khaliifat sheekh isxaaq ya oo markii hore turjeclo ku bilaabantay markii dambena inaga baaba'day ayay ahayd markaa intii ku dhoweyd sheekh isxaaq iyo muddadiisa ya inanka ugu weyn tol jecleh ya tolku isku waday nin walba waxbuu u dhiibay ya tolku isku hayay ninkaas ya laakiinse markay muddo gaadho ee dee dhaqankan kale in wareeriyo way ka baxaysa wixii baa laynoobiya waaye sheekh isxaaq baa halkaa ka gelaysa inta badan lama yaqaano sheekh isxaaq dilay inta wixii ka sarreeya abtisiinta wixii ka sarreeya maanta waxaan soo qortay 21 oday oo awowgii maxamed bin xuseen buuggii uu turjumay maxamed cabdi daawud ee maadheemanka lagu maamusay maydh inay sidan tahay oo ay sidaa tahay taad haysiyo tan istagayaan ayaan doonaya inaynu akhriyo haye imika wax kale idinka dhaadhacsan idinka Somaliland baa idinka dhaadhacsan annaka waxa naga dhaadhacsanaa shanta Soomaaliyeed mideeya sheekh Yaxmuud baa jiray annaka barigaygii konton inaan baa geli jiray sheekh Yaxmuud 25 kontonkaas ka soo bixi jiray kontonkayagii sanadkayga aanu kaga soo baxnay 40 baan militariga ku galay marka waxaad ka arki kartaa sida de halka ay mareysay yani halka de ay taagnay 40kaygii militariga galay markii adu waxaan u jeedaa 77kii markii dagaalka ka soo baxnay ayaa aniga markii aanu harar iyo jigjiga iyo goday baan ka qayb galay saddexda meelood ciidankii ugu horeeyay harar galayna waan ahaa ururkii ugu horeeyay anaaba wato harar gala okay markii aanu ka soo baxnay deelayna soo jabiyay adduunka de horta Ethiopia waanu ka adkaanay haruur lahan ku daray laakiin waa loo soo gurmaday Ruush iyo Jarmal iyo Yemen iyo Bilaaya waxaas naga soo saaray meesha ya iyo Kuuba iyo waxaas xoog baan lagu soo day saaray markii aanu ka soo baxnay deen aanu marka ciidankii wali u dhisay ayaa xaggan anigu markaa waxaan Arabsiya leeyahay ka galay aniga difaac Arabsiyan ka galay nin sheekh oo xajdaar la oran jiray oo jifada jooga ayaana suufidaan yaraahay markaas oo ayaan sir u tagay habeenkii markaan u tagay in la joogo ninkaas wax badan buu ka sheekeynaya waxaan soo maray balaadan adoo xageed ka timid oo Ethiopian ka soo dagaal galay Allah Ethiopia oo ku inoo helinaysa mid wala tii guud annagu ku buuxa waqti waba halkay waba ku inoo helinay warbiyood waalat ma kuwa sanad ka soo kowdi dabeetana sheekh saxaaq wuu wadaa markaa taariikhdiisa waxa soo waday dabeetana waxaan isir qoro abtisiintan sheekh saxaaq waan isir qoro xafid biir wariya ma iska daayo ha qoranayna xafid markii aan yaro qortay ayuu xafid anna halkii baan ku iloobay habeen labaadkii baan rasuul markaa soo gudbay Cabdi Rasaaq ma xafiday
inaa lilah wanaxay maya baan idhi sheekh xafid baan ku idhi waayahay habeen labaadkii saddexaadkii ayaan haddana soo galayo war ma xafiday markaasaan idhi maya maxaad u xafidi weyday inaa lilah dabeetana markii dambaan is idhi adoo xafida mooyaane ha ku noqone ka odhe saasaan u xafidsanay marka haddaba haddii dee waa sheekh isxaaq axmed maxamed xuseen cali xamza cabdallah ayuub maxamed qaasin axmed cali ciisa yaxya maxamed ataqi xasan alcaskari cali alhaadi maxamed aljawaad cali alrida muuse alkaadim jacfar asaadir maxamed albaaqir cali zayn alcaabidiin xuseen cali bin abi taalib okay waxaa jira markaa mid baan idiin sheegayaa oo abdisiintaasi yaro muujinayso oo beriga xafidaadaasi sheekhaasi yidhi xafid ayaa i fahamsiisayba markii dambe annagoo baranaya islaamka historyga anoo baranaya ayaa sunniga iyo shiicada iyo waxaasoo dhan baad baranaysaa islaamka historygaan baranaya waxaa jira niman la yidhaha ithnaa cashari oo shiicada ah ithnaa casharigii ayaan baranaynaa markaa imaamyadii ayaa waxaana xafidsanay aniguna abdisiintan sheekh isxaaq ayaan dee war waxaani miyaanay ahayntii un baan idhaha ya 12 kooga imaam 12 bay abdisiinta sheekh isxaaq maraysa ithnaa cashariga xasan un baanay maray dee xasan iyo xuseen oo walaalo ma mari karto 12 kale way maraysa ka 12aad marka imaam alawal waa cali imaam thani waa xasan imaam thalith waa xuseen saasay u wadaan imaamka 12aad bay yidhahdeen wuu isqariyey marka waxay yidhahdeen wuu qarsoon yahay waa mahdigii halkaasay ku leeyihin waa mahdigii abdisiinta sheekh isxaaq baana maraysa ya marka mahdigaasi kii bay leeyihin wuu nooliyey wuu sugayaa ya waayo iyagu waxay rumaysan yihin wuu nooliyey ninkaasi adna abdisiintii sheekh isxaaq baa maraysa haddee وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنا قرض ما سوقله أنت هو لما سعن لكن سؤال بعاوي وحي كهري سبي قد حكوا حيسي مثلا أنا قوي أنت كلامنا كوكيل ما كان ترسنا يوم شخص كحاجة مر كان مرة يو بناء أحمد أحلى رابع يقول ها ويرمي بافلية تذكرني دبل تناقف كل حسوديني يا شخص حق طبعا أبو هي أبو شخص حق لما تقول لي أما أول هالنقطة من صدق هالنقطة شخص حق نمديسة ميوش شيء أنا ترسين دمبه وإلا علي قال يساجرتو مسوي مو شيء حدو صو شيء يقول تفيرتي كدم بيسيل لا أنا حي مو شيء ساشا مركا أنا سويديا وحيت هاي محا قريي شخص حق ترسينتي كدم بيس قرنتن وابتن وضبا يا كودي إلى وقت دمبه أو أي ده حوجيستان يا أو أي نمن استفاعي كرر نقدان إسقرنتاسي كتيريا يا يقول هالك إسقرنتن وشيخ قبل يسوي اللي يدي إسقري محو أبتزينتي سي شيء عطوا شيء مو قرصومي لا ماي مدوغن بحي تطبضني كاغا قرينتا كميدا مدوغن با كميدا قرينتا اف كان اين كو هادلينا قرينتا كميدا يا اما كون بينو دي تاريخان تي بارayna eeg taariikhda marka dimanka baadhideed aynu ogaano ya marka qarintu waa halka ilaa imaka casri imaka aynu imaka afka la galay oo ay waxa imika de aynu diinta aad u baranayno waa waxyaalaha de predictionskiisa sheegay culimo badan ay naga soo baxayso ya diinta aynu aad u baranayno ya saadanimadii baranayno cilmi ya Soomaaliland garan ya kuwa sheekh saxaa qoray badana مخطوطات laga soo qorqortay de kuwa Yaman oo laga soo yara maanguuriyay baa yaala iyo horta ay Ingiriisku waxa ugu badan ay halka